السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ku soo koobaynaa taariikh nololeedkii labadii sano iyo barkii ugu dambeeyay ee walaalkeen marxuum Ilaahay ha u naxariistee Xuseen Samatar. haddii aan in yar oo kooban aan ka tilmaamo, wuxuu ahaa aasaasihii ahna fuliye sare ee shirkadda ADC oo iyadu maalgelisa dadka ka soo jeeda qaaradda Afrika. waa curiyihii dib-u-qaabaynta waaxda luqadaha kala duwan ee dugsiyada dadweynaha Minneapolis. astaamaha aan ku tilmaami karno waxaa ka mid ah hogaamiye aragti dheer oo caalami ah, danjire, hawlkar, qof bareero cad, rixin u ah ubadka, waalidka iyo bulshada. ugu dambayntii mar walba u ololayn jiray qolista iyo gacan ku haynta afka iyo hiddaha ummadda Soomaaliyeed ee aan u dhalanay. waxaa runtii ay tahay ilaahayna og yahay, ragga Soomaalida og yihiin, qof kasta hadda og yahay hadduusan idinka ahayn. mar hore meel waxaan jooga imaanay barafa, laakiin barafka intuu bacaad isu bedelo bacaad baan cuni lahay. Do a good job for the community, and I feel, and you agree with me today, her and above all Mufadeen, they did not fail us today. So thank you so much. I really feel that this time around there is a decent ELL plan, and the missing link was the community link, and this is today for me, and I will tell my board members, I will take this, I will also tell the superintendent, this is starting to shape up to be from your own input. But I'm just going to tell you, when I meet the other community members who speak Spanish or a mom or others, they're really saying that, you know, those Somalis are organized. They are really organized. What are they doing? You know, how could we learn from? Believe me, this was my honor. It was not yours, it was my honor to be here as your own board member. And before my 4 years is up, I said it. I would love to see the Somali language to be taught in the district. And my hope is that to happen this September, not even a year from now. marka ugu horeysa waxaad ogaataa aan ogahay isku raacsanahay haddii annaga luuqadii aanu la nimid ama kuwanka nagu dhashay haddii aysan af Soomaali baran waxay noqonaysaa wax weyn oo naga tegay. ama sidee doonto wax ku barato, ama iskuul lagu barto, ama guriga lagu baro, ama axad ha la baro, ama sabti ha la baro, idinkuba waalidka iskale go-aanka idinku taala. We believe that there is only one way out for these children, for these students, and that's education. And we'll do whatever we can and whatever it takes to educate them. What the Somali community has said many, many times, and we'll say it again, we are extremely grateful to come to this country, to come to Minnesota, and make it a better place. You all know that we only do better when we all do better. waliba dadka sida Riverside degan aad baan ugu mahadcelinayaa. sabab kalena ma ahay, waxa weeyaan waxay ahayd dadkii doortay November 2010. hadiyada waxa ku taala presented to Xuseen Samatar for your efforts for the autism parents and the Somali community in general. dugsiyada dadweynaha Minneapolis waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa qaybta libaax ee ay ka qaateen agaasinka maamuuska isku dubaridka iyo duugta marxuum Xuseen Samatar. marxuumka waxaan Ilaahay uga baryeynaa inuu ka waraabiyo jannatu firdawsa, eheladiisii, cashiiradii, qaraabadii, qoyskii iyo asxaabtii uu ka tagana samir iyo iimaan uu ka siiyo. wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.